caabuqan wuxuu saameeyaa qeybaha dhexe ee jirka bani'aadanka gaar ahaan lakabka sare ee maqaarka. qofka wuxuu isku arkaa in midabkii meesha ay aada u bedelantay, gaar ahaan xiniyaha hoostiisa, qeybaha kore ee xubinta taranka, dhinacyada lugaha ilaa iyo salka dambe. waxay noqonaysaa dhammaan gebi ahaanba meeshaas inay noqoto mid qaab ahaan isbedeshay, cuncun badan uu qofka uu ku dareemayo. sidoo kale dumarka way isku arkaan marxaladan, waxayna arkaan dhanka iyo farjiga ama xubintooda taranka banaankeeda ilaa iyo wareega inay noqotay mid guduudan, midabkeedan isbedeshay, maqaarkana uu dabcan uu aada usoo cuncunayo mar walba. marxaladan waxaa loo yaqaanaa tinea cruris. marka hore saaxiibayaal, inta igu cusub iyo intii hore waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isu soo noqod wanaagsan, kulanti wanaagsan. waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. marka labaad, dhammaan asxaabta halkan igu jirto waxaan idinka codsanaa inaad YouTube kanaalkayga subscribe ka saartaan, like gareysaan, su-aalna idiga soo weydiisaan. sidoo kale haddaad igala socotid dhanka iyo Facebooka, waxaan kaa codsanaa inaad like iyo follow aan naga hilmaamin. taasi waxay noo tahay dhiirigelin iyo sharaf mid meel dheerna gaarsiin karta. maanta waxaan dul istaagaynaa marxaladda loo yaqaano tinea cruris. dabcan waa caabuq uu sababo jeermiska ilma aragtada ee fangi, gaar ahaan waxaa si gaara usii keenayo noocyada ay ka dhalato jeermisyada cambaarta. waxyaabaha ugu muhiimsan ee soo gudbin kara waxaa ka mid ah qofka inuu contact la yeesho ama xiriir uu la yeesho qof uu ku dhacay caabuqan ama cuncunkan. tinea cruris waxaa lagu kala qaadaa qofka marka uu u dhawaado ama uu contact taabasha uu la yeesho meesha uu qofka uu ka xanuunsan yahay ama fangiga uga dhacay. sidoo kale qofka marka uu xanaaneysanayo xayawaanaadka guriga u joogo, gaar ahaan eeyaha iyo bisadaha ama mukulaasha, waxaa macquula in si fudud ugu soo gudbo fangiga loo yaqaano dermatitis, kaasoo ku dul nool xayawaanaadkaas, si fududna adiga kugu soo gudbi karo, fursadna u heli karo inuu kugu dul dhownaado dhanka iyo maqaarka, gaar ahaan lakabyada sare, taasoo uu ku tarmi karo caabuqun uu ka sameyni karo. dadka khataraha ugu jiro ama dadka uu ku dhici karo waxaa ka mid ah dadka nadaafadarooda aadka u hooseyso. qofka marka ay nadaafadaradiisa aada u hooseyso, uusan ahayn qof qabaysta ama maqaarkiisa nadiifiya ama aada ugu dadaala dhanka iyo nadaafadda, waxaa suurtagal ah in had iyo jeer ay ku dul noolaadaan caabuqyada kala duwan, gaar ahaan fangiga, kaasoo sabab u noqon karo in infection uu meeshaas ka dilaaco, midabkeeda uu isbedelo, qofkana uu dareemo cuncun. sidoo kale waxaa khataro ugu jiro inuu ku dhaco caabuqan ama cuncunkan dadka kaadi macaanka qaba ama cudurka kaadi macaanka. had iyo jeer waxay u nugul yihiin inuu saameeyo fangiga qeybihiisa kala duwan, gaar ahaan kuwa maqaarka ku dhaco, kaasoo fursad u yeelan kara in infection uu ku abuuro dhanka iyo maqaarka. sidoo kale dadka cayilay ayagana khataro badan ayay ugu jiraan, sababtoo ah waxaa jirto huur badan ay ku imaanaya dhanka iyo maqaarkooda, taasoo ay keentay laalaabidka ku imaada dhanka iyo xeerta ama cayilka badan saaran. waxaana suurtagal ah inuu ku dulnoolaado fangiga dermatitis, kaasoo sababi karo infection inuu ka dhaco. sidoo kale waxaa khataro badan ugu jiro dadka dharka cariiriga qaata, gaar ahaan jeermisyada iyo dharka oo ku dhagan isticmaala. had iyo jeer waxaa lagu arkay inuu fursad u yeesho caabuqa ilma aragtada ee cuncunka iyo xasaasiyadda u keeni karo dhanka dhexe ee jirka bani'aadanka. waxaa kaloo khataro ugu jiri karo dadka dhididkoodu aadka u badan yahay, huurka badanna ka qaadaya dharka, kaasoo sabab ku noqon karto inuu ka dhasho dermatitis. dhammaan qeybahan kasoo hadalna waxay u nugul yihiin ama khataro badan ugu jiraan in had iyo jeer uu saameeyo cuncunkan ama caabuqan ku dhaco dhanka iyo qeybaha dhexe ee jirka. wuxuu qofku isku arkaa in midabkii meesha uu bedelmay, had iyo jeerna uu ka dareemayo in meesha ay cuncunayso. sidoo kale meesha inay noqotay ama maqaarka dhinacyadiisa inay noqotay mid gudguduudan oo aada midabkeeda usii guduudanaya, taasoo sameysanaysa wax loo yaqaano demarcation, in dhinacyada ay kasii ballaarato ilaa ay salka hoose ee tagi karto dabada qeybaheeda dambe. sidoo kale caabuqan hadduusan qofka iska daaweynin, marka hore wuxuu ka bilaabanaa qeybaha hoose ee xiniyaha, qeybta kore ee xubinta taranka maqaarka ku dahaaran kaadi haysta. waxaa laga yaabaa inuu usii gudbo dhanka iyo qeybaha kore ee jirka bani'aadanka, gaar ahaan kilkisha, xabadka iyo qoorta.
tinea cruris waxaa muhiim ah inuu qofka iska daaweeyo, inuusan qofku isku fiirsanin. haddii jeer waxaa loo qaataa daawooyin aada u fudud, balse marka ay noqoto in qofka uu isku fiirsado waxaa dhici karta inay aada u adkaato arrintan. waxaa laga yaabaa marka hore qofka inuusan fahansaneyn waxyaabaha keeno, qaababka ay u imaadaan, balse marka uu arko isbedel dhanka maqaarka inuu ku dhacay, midabka maqaarka uu isbedelay, taasoo guduud badan uu ku arkaayo, nabar yar yaroo guduudna ay ku dhex yaalaan, mararka qaarkoodana ay cuncunayso, isbedelkaas haddii jeer qofku waxaa laga yaabaa inuusan dhakhtar uu la tashanin, taasina ay keeni karto inay aada usii faafto. meelaha sida guud ahaan ee aada ugu faafi karto waxaa ka mid ah dhanka iyo kaadiheysta wareegan, sidoo kale dhanka hooseeya xubinta taranka ka hooseysa xiniyaha hoostiisa. sidoo kale dumarka ayagana waxay ku arkaan dhanka iyo xubinta taranka ama farjiga maqaarka ku dahaaran, gaar ahaan qaybta banaanka soo xigto inay noqoto mid aada erematose u noqoto, guduud noqoto, iijina ku sameyso, taasoo qofka markuu dharka adag uu sii qaato aada ugu sii badinaysa huurka, kana dhigaysa in qofka uu aada ugu sii ballaarto isbedelka ku imaada dhanka iyo maqaarkiisa, caabuquna inuu noqdo ilaa iyo salka hoose ee dabada inuu gaaro. haddii uusan qofka iska daaweyn waxaa dhaci karto inuu kor usoo faafo qoorta kore, kilkisha inuu gaaro. tinea cruris waxay leedahay daawooyin aada u fudud oo loo isticmaali karo. noocyada haddaan ku hormarno dhanka iyo antifungiga waxaa ka mid ah first line marka uu sameynayo in ku dhow 3 isbuuc ama bil inuu wado, taasoo isbedelkeeda daawadan ay qaadanayso wixii ka dambeeya 2 isbuuc in midabka maqaarka uu caadi u kusoo laabto. sidoo kale marka uu xasaasiyad badan uu ku hayo bomatooyinka corticosteroidska ayuu isticmaali karaa sida hydrocortisone, iyadoo uu la qaadanayo waxyaabaha dabcan mycotiga ama antifungiga. sidoo kale penicillin tabletska ayuu la qaadan karaa daawooyinka. haddii arrinkan uu wax isbedelo uu keeni waayo dhanka iyo daawooyinka first line treatment, waxaa muhiima inuu qaato noocyada kale ee aadka effective uga ah ama daawooyinka ka roon noocyada aan kasoo hadalnay ee clotrimazole ama ketoconazole. gaar ahaan wuxuu isticmaali karaa kuwa loo yaqaano itraconazole ama terbenafine. daawooyinkan waxay ka saacidayaan in si guud ahaan ay u tirtiraan fangiga ka dhashay ama caabuqi ku sameysmay dhanka iyo qeybaha dhexe ee jirka. sidoo kale qofku waa inuu ku dadaalaa dhanka iyo nadaafadda, waa inuu iska ilaaliyaa waxyaabaha nadaafad darrada u keenayo. haddii uu yahay qof aada u dhidid badan ama qof aada u hur badan, inuusan isticmaalin dharka aadka u hur badan ama kuleelka kugu keenayo. ugu dambeyntii anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed waxaan idin leeyahay aada iyo aada u mahadsantihiin dhegeysiga la socodka video clipska aan soo gelin.